بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتو عن أو وناكسن داودياشنا شرفت لهم البود دوني كجوكتان يسوي البود نوت داونيسان halkani waa youtube-ada kala ah carfi beauty channel iyo youtube-ka liban kulo waxaanu barnaamijkan kaga hadli doonaa qodobo ay kamid yihiin booqashadii dhawaan ra'iisul wasaare Roble ku tagay magaalada Nairobi ee wadanka Kenya doorashooyinka Soomaaliya ee soo socda iyo ra'yiga dadka Soomaalida ee iyagu ku dhaqan qurbaha iyo waliba tahriibta iyagu marin ahaan u sii mara magaalada Nairobi waxaa si toos ah magaalada Nairobi qadka telefoonka ugu jirta waa Carfi Xariir Aadan Carfi ku soo dhawow barnaamijka waan dhawahay walaalimaan oo aad iyo aad baad mahadsantahay waan dhawahay aan ku bilaabay Carfi bal marka hore waxaad nagu warantaa sida dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Nairobi guud ahaan wadanka Kenya ay u soo dhaweeyeen booqashadii dhawaan ra'iisul wasaare Roble uu ku tagay wadankaasi Kenya waa mahadsantahay walaalo mar kale aad baa mahadsantahay maasha Allah walaal aad baa loo soo dhaweeyay si fiican baa loo soo dhaweeyay oo farxad leh because dadka Soomaalida iyo dadkan Kenyaanka waa dad isku xidhan waa dad ganacsi ka dhaxeeya waa dad wax kasta ka dhaxeeyaan marka maasha Allah si fiican baa loo soo dhaweeyay waana lagu farxay inay labada waddan dib hal mar labaad dib isugu soo noqdaan ay heshiiyaan ay cilaaqaad fiican wada yeeshaan ay heshiiyaan marka maasha Allah si fiican loo soo dhaweeyay walaal wagartan si lamida halkan anigu hadda aan joogay meel walba oo dunida ah oo ay ku nool yihiin dadka Soomaalida ah waxa aad loo hadalayaa doorashooyinka Soomaaliya ay u dareertay dhawaan la filayo inay qabsoomaan kadib marka ay soo dhameystirmaan doorashooyinka aqalada hoose iyo sare ee baarlamaanada Soomaaliya idinku xaqiina arinta dadka ma isweydiiyaan oo ma ka hadlaan walaal aad iyo aad waa laga hadlaa because Soomaalida meel kasta adduunka joogaan ba maxaa la dhahaa way jecel yihiin wadankooda waana la socdaan oo maxaa la dhahaa si wax u dhacayaan si wax u socdaan ba way la socdaan waana jecel yihiin inay dawlad fiican ka dhalato oo maxaa la dhahaa kala dambeyn u yeesho oo maxaa la dhahaa wadan dhisan u noqdo marka aad baa looga hadlaa dee qolaba adigu qolada yani musharaxay doonaan ha taageeraan oo ha taageersanaadaan dadku dee ha kala qaybsanaadaan laakiin way taageersan yihiin inay dawlad ka dhalato inuu dhismo maasha Allah aad baa loo taageersan yahay waana lala socdaa maxaa la dhahaa oo way dee aad bay u taageersan yihiin maasha Allah dhinaca kale dadka Soomaalida iyagu ku dhaqan xiriyaha qaxootiga ku taadsan meelaha dibadda ka ah magaalooyinka waaweyn ee wadanka Kenya ay dadka Soomaalida ay kamid yihiin iyagu noloshooda marka loo fiiriyo mashaakilaadka la xiriira dhinaca shaqo la'aanta waxbarasho xumida maxaad noogu sheegi kartaa ما شاء الله ولا لينك استنا نقول تحقق كنا ولا إن قحنتية دي ملها أنا نقول هذا نيروبي عاصمة كنا ولا هاي لكن هذا ناس سيتهاي دورر كذا وأنا مقلة وأنا هاينا ما شاء الله هرتو حبرشة ويسكا في عنده حبرشة كان يعاد الموضوع وحبي برتان عرتو حبي برتان سكولات بكفرن نشقدنا دي قفي ويسكا جناح صدان ضدكو جناح سجوا دايرير ناقص استبها وهذا وأدقو لكن دين عصو حاجة ومال عملية كل له كعملة كل المالها كله كان يا كعملة كل حاجة مركا maxaa la dhahaa ganacsigooduna maasha Allah wuu fiican yahay because halkan maxaa la dhahaa halkan ay looga qaadaa ganacsiyada yani alaabta ay ganacsigooda oo ay ka rartaan Nairobi way ka rartaan marka maasha Allah ganacsigoodu wuu fiican yahay waxbarashadoodu sidoo kale dee amnigana waa maxaa la dhahaa waa laga shaqeeyaa dee kuleyba dawladda ayaa gacanta ku haysa iyo hay'adaha marka maasha Allah waa ma xuma aad iyo aad way fiican yihiin واقرت مقالة نيروبي وكل هذا النماذج ضد كسوماليدا أو كنول إنك استولى جاب بين تراهان نقون كران ضد هذا فرق بدن ملايين كوميونيتيو أوفيسيو ضد كور هيا أو ضد إسكو حيران ضد كسوماليدا هالك كل رقم مية ما شاء الله وي ولا محالة ده واحد كوميونيتيو كسوماليدو يعني هذا إيجارو ليهين يعني هذا ما قرنا يو ما أنا المقلب تيران لكن ده واحد شراء محل ده كاونتي واحد كشقية ده دولة واحد ليهين محل ده لين أوصل درتين أو ده برلمان كترسن أو محل ده هي شراء مركا ده أو ده لبكو ده يو عبشوين كو ده يو حيابه أي مركا أي ربنا دولة ده وجود بيان وقاعد له أفيان أي شراء واقرت حرية دقائق بل كورن قفك Soomaaliga
ku nool magaalada Nairobi haddiiba ay noqoto inuu safro magaalo ka baxsan Nairobi sida Garissa ama meel kale oo isla wadankaasi waa sidee dhinaca socodka oo kale maasha Allah walaal socodku ma xun qofka hadduu sharci leeyahay horta waxuma asaga ma isoo taagan laakiin dhibku waxa weeye qofka haddaanu sharci haysanin ayuun baa dhibaato u iman kartaa laakiin qofka hadduu sharci haysto oo sharcigiisu dee sharci sax ah oo uu haysto meelna ma celinayso meeshu doon u safraya ama ha dheeraata ama ha dhow ama wadanka gudihiisa ha noqoto ama dibadiisa ha noqoto waa u safraan waana u kala socdaan qofka marka hadduu sharci laakiin qofka haddaanu sharci haysan waxaa laga yaabaa dhibaatooyin badan inay la kulmaan oo maxaa la markii hore wadanka bilaa sharci ku soo galay wadanka gudihiisana bilaa sharci iska joogay sida ku baxdaa uu ku baxaa markaa way adag tahay waa karti dhinaca kale marka aad fiiriso cimilada iyo isbedelka cimilada oo kale Kenya maxay kaga duwan tahay Soomaaliya dhinaca cimilada oo kale والله cimiladeedu hadda Kenya waa iska qabow hadda waqtigan aan joogno de Soomaaliya waxaan maleynayaa marba waa nooc adigu marqabo waliba waxaan filayaa inuu kuleylku u badan yahay sida aanan inkastaanan de waqti dheer anigu aanan Soomaaliya hadda aan yani aan ka sokeeyo aanan ka sheekan karin baad haddana saasay tahay cimilada Kenya iyo Soomaaliya aan waagaan ogaa cimilada Kenya ayaa mar walba way qabow bay ku badan tahay especially Nairobi aan ku noolahay qabowgeedu waliba hadda saacadan aan joogno zaaid bay u qabowday zaaid bay u qabowdahay qabowgeeduna kuleylkeeduna xataa marka ay kulushahayna kuleylkeedu ma aha wax weyn oo aad u adag oo mise kuleyl badan ma qabto ma lahan bal marka laakiin Kenya loo fiiriyo gobolada kale sida hadda imanka magaalada xeebta Mombasa iyo gobolka waqooyi bariye maxaa la yiraahdaa NFD ma la dhahaa dhinacaasina xoogaa cimilada way kulushay laakiin Kenya inta kale qabow bay u badan tahay zaaid bal laakiin waqtigan hadda joogno meel kasta way qabowday Nairobi oo Kenya waa qabow bay hadda ku jiraan yani waqti qabow bay ku jiraan waa karteen dadka Soomaalida ay ku dhaqan magaaladaas iyo guud ahaanba magaalooyinka kale ee wadankaasi waxbarashada xaggeeda bal ka war ma jiraan dad Soomaali oo jaamacadaha ka soo qalin jibiya oo wax barta oo tiro ahaan marka la fiiriyo dadka meesha ku noolna tirada wax barata ma tiro maxaa lagu qiyaasi karaa maasha Allah aad iyo aad waxbarashada Kenya aad bay dadku u bartaan qof Kenya jooga oo wax baran uu yar yahay aad bay u bartaan ilmaha dadka waaweyn caruurta xataa maxaa la dhahay sheeg dadka dhalinyarada waa jiraan dhalinyaro badan oo jaamacadaha college-yada kala aadaan marka waxbarashadeedu aad bay maxaa la dhahaa u sareysaa waana socotaa waxa kaliya ay awood saaraan wadankan waxbarashada qof kasta oo yani markaas de hadduu qarashaadka mise uu hayo waxbarashada maasha Allah way jiraan dhalinyaro badan oo shaqo la'aanta meel walba iska jirtaa xataa halkan dhalinyaro badan oo aad arkaysa jaamacada ka soo qalin jibiyay iska bilaa shaqo la'aantu way iska badan tahay maxaarka way shaqee way waxbarashada laakiin waa la bartaa maasha Allah waa gartay dhinaca sharciyada iyo helidda jinsiyadda wadankaasi iyadana bal nooga sheekay walaal sharciyadu way iska adag yihiin sharciga wadankan sida lagu helaa way adag tahay waxyaabo badan baa lagu xidhayaa especially haddaad Soomaali tahay lahjadaadii waxbaa la fiirinayaa waa xoogaa waa lagu adkeynayaa laakiin qofka hadduu lacag haysto dadkan aad bay maxaa la dhahaa galaaluushka wax ku bixiyaan waxa laga yaabaa qofka hadduu xoogaa haysto iska bixiyo lacag inay siiyaan laakiin way adag tahay sida kale inaad ku hesho sharci adoon hadda aan wadankiina u dhalanin oo wadanka markaa aad meel kale ka timi lahjadaadina la ogaado inaanad dadka wadanka u dhashay ahayn way adkaanaysaa laakiin haddaad lacag ay la baxdo waad iska helaysaa sharciga waa gartay waxaa la sheegaa hadda in Nairobi ay ka mid tahay magaalooyinka ay meelo socodka amaba cabiraada u noqotay dadka muhaajiriinta iyagu danaynaya inay gaaraan wadanka Liibiya arrintaa maxaa ka ogtahay walaal way tahriibaan dadku laakiin sida u badan yihiin Kenya kama tahriibaan dadka tahriibayaashu saaid meelo kale uga sii badan yihiin xagga Ethiopia iyo Suudaan iyo waxaan leeyahay isha Uganda iyo dhinacaas laakiin way jiraan dad badan oo halkan ku nool oo ka tagay oo ka tahriibay wayna tahriibaan dhalinyarada deeska bilaa shaqada noqdeen biska bilaa camalka noqdeen way iska tagaan way iska tahriibaan way baxaan inta badan inkastoo hadda sanadahan dambe sidii hore ay ka yar aad malaysa inay hoos u dhac yar malaa tahriibtii ay hoos u dhac ku yar yimi laakiin haddana saas ay tahay way socdaan way baxaan way tahriibaan dhalinyartu waa gartay dhalinyaradan socod ahaanta usoo marta magaalada Nairobi ee ka imaanaysa
meelaha kale sida Ethiopia, Soomaaliya iyo Eritrea oo kale ee soo gaarta iyagu magaalada Nairobi xaggay ugu sii tilaabaan marka ay rabaan Liibiya yaa saxeeya ma dad muqallisiin oo arrinta ka shaqeysta ayaa ku sugan magaaladaas ها runtii way jiraan Kenya kaliya kuma sugna ilaa Soomaaliya waa dad isku xidhan oo ganacsigoodaba yani wax kalaba ma ka ganacsadaan dadkaas bay ka ganacsadaan ilaa Soomaaliya ay joogaan ilaa iyo Liibiya waa dad isku xidhan oo silsilad dheer la weeyo oo waxaas ka ganacsada marka qofka hadii la doono waxa laga soo wadaya ilaa Soomaaliya ilaa iyo Liibiya meesha ka bagafuhu ay xaruntoodu tahay doonta ay ka saaraan ilaa halkaas joogaan dadkana maxaa la dhahaa inta ilaa intaas sii wadayeen jidka wax lacag kama qaadeen qarashkooda gaarigooda biyahooda cuntadooda wax kasta ayaga qaba xagga hadhow marka la geeyana waxa la dhahayaa soo ciyaar wixii la qarashku kugu baxay iyo wixii doonta lagu saari lahaa iyo de faa'iidadiiba kan baa la leeyahay qofka markuu xagga tago ama ha haysta ama yuu haysan aday ku taala soo dhig baa la leeyahay bilaa hadal waagarteen waxa kale oo nagu warantaa isu socodka magaalooyinka ku taadsan xadka Kenya iyo Ethiopia maadaama hadda Ethiopia ay dagaalo ka socdaan waa sidee isu socodka labada dhinac ee xuduudka wallahi walaalo xuduudka dadku waa isu gudbaan una dagaalaha iska jiraan haddana saas way tahay wadada uun jiraan oo hawlo ka dhaxeeyaan ganacsi ka dhaxeeyo wax kasta ka dhaxeeyaan waa buuxaan waa la isu socdaa si fiican waa la isku socdaa oo Etoobiyaanku way yimaadaan Kenya afkan ay ka hayaan sababta wadankooda harta dagaalada ka jiray imka dagaalada ka soconaya way yimaadaan way yimaadaan kuwana way tagaan marka masha Allah dadka isku socodku waa caad wala la isugu socdaa dhinaca kale waxaad iga warantaa bal waxaad warbixin naga siisaa xaaladaha dadka qaxootiga ma jiraan qaxootiyo dhawaan la qaaday ama kuwa hadda filaya in la qaado qaadistiisa wali ma socotaa walaalo horta qaxootiga uun Mareykan bas in badan qaadi jiray dadka mana xiriyahan ku jira marka hadda waxba hadda in dhaweyd lama qaadin sidii ninkii hore ee Mareykan ka tagay maxaa la dhahaa xilka ka tagay sidoo uu qabtay laakiin hadda ayaan dareemayaa maqlayaa wax baa la bilaabayaa ninkan inuu wax qaado dad hadda waan maqlayaa wax in dadka xataa dadkii dacwadda sameynayay ee dacwadahooda u xareysnaayeen xataa oo kan markii hore ka baniyad jabis kaga tagay haddana dib loogu soo wacay leeyri in kaalay mara maxaa la dhahaa dacwadiini mara la dhahayo marka waxaan filayaa adigu ninkan inuu wax u kala furfuraayo dadkan hadda marka wali laakiin waxba lama bilaabin maadaama ay cusub tahay sheekadu hadda birdhawad waxaa jirta inay mar soo korortay cabsi ku aadan afduub loo geysanayo gabdho kamid ah gabdhaha Soomaalida ah ee magaalada Nairobi arrintaas hadda ma dhamaatay mise wali cabsidaa waa jirtaa walaalo way jirtay arrintaas mar way dhacday waxaas yaabaha afduubka dadkuna way iska buunbuuniyaan waxba isla dhex maraan marka laakiin hadda alxamdulillah wixii sidii looga hadlay dad badan loo soo qabtay loo soo xirxiray oo waliba ay Kenyaan ku jiraan Soomaali ku jirto hadda ma in dhaweyd xoogaa bilahan dambe waa laga nasto wax dambe hadal hayntii iyo afduubkii iyo wax dambe hadda ma jiraan insha Allah waxaan rajaynaynaa inta ku dhamaado ugu dambeyn carfi waa sidee marka guud ahaan xaaladda amni shaqo iyo midda caafimaad dadka Soomaalida ee ku gola dhaqan adiga magaalada Nairobi والله أمانكم ما شاء الله أنا في نيروبي وأنا أمانك الحمد لله وحدي بلغ ما قبو محل ده وانا لإلارية أمانك محل ده برشاد ما شاء الله وإسك سعودتين كسر حنونية وحاسبون أدون كان إسكوريجا يانو لليه هي حنونك وبدنا يايو any time school هذا ولا حرك كرا ما شاء الله برشاد وإسعودها عفمات كنا ده حنونات ولا وابي إسكبتهم بأدون كان asagoo day markii hore xanuunay iska jireen haddana waxa double ku sii noqday xanuunkan corona ayaa sii batay marka haddana saas ay tahay cidna ma dadku ma rajo dhigin waa la dagaalamaya de marka alxamdulillah wallahi noloshu waa iska alxamdulillah waa la iska wadaa waxgaaka daawadayaasheena sharafta leh meel boo dunida ka joogtaan taasina waxay ahayd Carfi Xariir Aadan oo iyada oo joogta magaalada Nairobi ee waramaysay haddaba tan intaan dib dambe barnaamijkan oo kale ah markaan hawada ugu kulmi doono waxa aan ugu dambeyntii aniga iyo Carfiba idin leenahay mahadsanidin fi amaan illah